gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Ali Said Faqi oo la sheegay uu ka maqnaa magaalada Baraawe ee caasimada koonfur galbeed Soomaaliya geekan reedanka nagadi magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay way banaasasada gudoomiyaha garoonka ka dhawaay mas'uuliyiin ku tirsan dowladda koonfur galbeed Soomaaliya oo koolay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka koonfur galbeed iyo wasiira safar shaqo ka ambahay magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Ali Said Faqi kooxii kureed magaalada Baydhabo wayba uu samagaabay xubno xildhibaanada guddiga golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ka shaqeey doona qodobka doorashada aqalka sare guddiga uu samagaabay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Ali Said Faqi waliba uu koobiya tumiko xubnood yana ka shaqeey doona qodobka doorashada meeka koreya baarlamaanka Soomaaliya walibana magacaawista guddiga warbaahinta akhri gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Nuur Macalin bismillaahir rahmaanir rahiim maanta ay taariikhdu tahay 25 bishii 7 2021 golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed wuxuu magacaabayaa guddiga doorashada ee xildhibaanada aqalka sare marka sidan ayaan warqadan u akhrinaa ujeedo magacaabid xubnaha xildhibaanada guddiga golaha wakiilada ee qabashada doorashada aqalka sare gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo guddiga hirgelinta qabashada doorashada aqalka sare markuu arkay gudoomiye ku-xigeenada golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed markuu la tashaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu qiimeeyay aqoonta iyo khibradda xubnaha ay u leeyihiin arrimaha doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu xubnahaas hoos ku xusan u magacaabay guddiga qabashada doorashada aqalka sare lambar 1 xildhibaan Usmaan Buule Macalin lambar 2 xildhibaan Aamina Isaaq Maxamed lambar 3 xildhibaan Ibraahim Macalin Ali lambar 4 xildhibaan Ibraahim Xaaji Xasan lambar 5 xildhibaan Qaasim Maxamed Abuukar lambar 6 xildhibaan Xareedo Ibraahim Xuseen lambar 7 xildhibaan Maxamuud Sheekh Maaxi Yuusuf lambar 8 xildhibaan Abshir Diiriye Nuur lambar 9 xildhibaan Mukhtaar Maxamed Aadan lambar 10 xildhibaan Usmaan Nuur Aadan Fiile 11 xildhibaan Abdifataax Maxamed Ali Abrone waxa ku saxiixan gudoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed Ambassador Dr. Ali Said Faqi wabillahi tawfiiq Faisal Daay Hussein warbaahinta koonfur galbeed magaalada Baydhabo